ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya ayaa bilaabay inay si rasmi ah uga guuraan saldhigyada ay ku lahaayeen Beledoogle iyo magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo xilli madaxweynaha waqtiga ka sii dhamaanaya ee Mareykanka Donald Trump oo amar ku bixiyay in ciidamadiisa laga saaro Soomaaliya intuusan xafiiska wareejin sanadka cusub 24 saac la soo dhaafay waxa biyaha Soomaaliya soo galay markabka US Herschel oo ah nooca diyaaradaha xambaaro gacan ka geysan doona daabulista ciidamo ilaa 700 askari lagu qiyaasay ee ku sugan Soomaaliya howlgalkan waxa ka qeyba diyaaraddu nooceedu yahay AC-130 oo difaac dhanka hawada iyo xog ururin sameyn doonta muddada howlgalku soconayo waxa inta dheer diyaaradaha sidii gorgorka ugu muuqaalka ee qumaatiga u kaca oo gaaf wareegi doona badda muddada uu markabkan ku sugan yahay biyaha Soomaaliya dadka ku nool deegaanada ku dhow saldhigga Beledoogle ee gobolka Shabeellada Hoose ku yaal ayaa sheegay in xalay ilaa shalay ay maqlayeen guuxa diyaarada joog hoose ku duulaya taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ee magacooda loo yaqaan Africom ayaa sheegay in ciidamada loo kala daabuli doono Djibouti iyo Kenya Africom waxay sheegaysaa inay u diyaarsan yihiin haddii weerar lagu soo qaado ciidamadooda intay ku guda jiraan guuritaanka markabkan oo dhirir ahaan gaaraya 239 mitir ayaa asal ahaan loogu talagalay in saldhig ahaan loo isticmaalo waana mid cusub oo rasmi ahaan loo howlgeliyay 22 Febraayo 2018 qiimihiisu waxa uu ku fadhiyaa 498 milyan sida ka muuqato waxa markabkan loogu magac daray Herschel Williams oo ah sargaal ciidanka Marines-ka ee Mareykanka ka tirsanaa oo ku dhintay dagaalkii labaad ee adduunka ciidamada Mareykanka ayaa Soomaaliya u joogay la dagaalanka Al-Shabaab iyadoo tababar ay siinayeen ciidamada gaarka ah ee dawladda ee Commandoska howlgalka midowga Afrika ayaa maalmo ka hor arrintan walaac ka muujiyay iyagoo sheegay inay suurtagal tahay haddii ciidamada Mareykanka Soomaaliya ay ka baxaan Al-Shabaab ay bilaabi karaan in dib mar kale isku soo abaabulaan